bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saaka idin haya waxaa kamid ah gudoomiye taabid oo war xasaasi ah ka soo saaray isku horimaad gelinkii dambe ee shalay xaafadaha jaamacadaha ku dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya maxaa ka jira in Kenya ay garoonka diyaaradaha Nairobi ku qabatay lacag uu lahaa sarkaal ku dhow qoyska madaxweyne Farmaajo Mareykanka oo faahfaahin ka bixiyay duqeyn diyaaradaha dagaalka Mareykanka uu ka geystay gobolka Bari Kenya oo gubtay alaab ku fadhisay $60,000 oo ka timid Soomaaliya iyo Kenya oo isku haysta doorashooyinka Jubbaland wararka dibadda wararka TV saaka idin haya waxaa kamid ah madaxweyne Trump oo inkiray inuu aflagaado u geystay gabar ka tirsan boqortooyada Ingiriiska iyo nin magaca boqortooyada Sacuudi Carabiga dadka ku baadi jiray oo xabsi la dhigay daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka fadlan subscribe barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya gudoomiye hore gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa war ka soo saaray isku horimaad qasaare geystay oo ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya galinkii dambe ee shalay xaafadda jaamacadaha ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku dhaxmaray gudoomiye hore gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa war ka soo saaray isku horimaad qasaare geystay oo galinkii dambe ee shalay xaafadda jaamacadaha ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gudoomiye hore gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa hadal qoraal ka soo saaray dagaal ku saabsanaa dhulka danta guud ee dawladda Soomaaliya oo galinkii dambe ee shalay xaafadda jaamacadaha ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gudoomiye Taabid ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqaynay si nabadgelyo ah ay ku wajahdo marka la doonayo in dad laga kiciyo guryaha danta guud ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho halkii laga shaqayn lahaa in dhiig uu daato iyadoo waliba lagu guda jiro dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadaan gudoomiye Taabid ayaa waxa uu soo jeediyay in loo baahan yahay in dawladda ay sameyso guddi loo xilsaaro arrimaha dhulka si ay si nabadgelyo ah uga kiciyaan dadka degan dhulka iyadoo aanu dhiig daadan sidoo hadalka u dhigay isla markaana laga shaqayn barakac dad danyar ah gudoomiye Taabid ayaa waxa uu ku baaqay in laga fiican yahay in duulaan lagu qaado dad shacab ah oo degan dhul dawladdu ay leedahay iyadoo waan iyo wada hadal dadkaasi looga saari karo dhulka maadaama iyagu laftigooda ay yihiin dad Soomaaliyeed oo shacab ah isla markaana ay qayb ka yihiin dadka lagu shaqeynaya dhulkaasi galinkii dambe ee shalay ayaa xaafadda jaamacadaha ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaa isku horimaad uu ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya iyo kuwa military ah oo difaacaya deegaankaasi oo dawladda u qabatay muddo 7 ah inay ka guraan saraakiil ka tirsan ciidanka military oo ka soo baxay furmihii dagaalka oo ku sugnaa deegaankaasi ayaa warbaahinta u sheegay in caruurtooda iyo xaasaskooda ay degan yihiin deegaanka jaamacadaha ay difaacayaan siday hadalka u dhigeen dawladda Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisay duqeyn diyaaradaha dagaalka ee wadanka Mareykanka ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Bari war ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa lagu faahfaahiyay howlgalka dhanaha kooxda Daesh oo ka dhacay gobolka Bari waxaana Mareykanku uu sheegay inuu bartilmaameedsaday koox ka tirsan ururka Daesh oo qasaare weerarkaasi lagu gaarsiiyay warka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanka oo kaashanaya kuwa Soomaaliya ay bartilmaameedsadeen deegaano ka mid ah gobolka Bari halka ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Daesh taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in howlgalka intii uu socday ay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wadanka Mareykanka 3 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Daesh ayaa warka lagu sheegay in lagu dilay duqeyntaasi iyadoo lagu bartilmaameedsado oo lagu burburiyay saldhig kooxdaasi ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Bari dawladda Mareykanka waxaa ka go'an sii wadista beegsiga Daesh iyo Al-Shabaab si ay uga hortagaan dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan iyadoo sidoo kale mar walba la xaqiijinayo in qasaare dhimasho mid dhaawac aan soo gaarin dadka rayidka ayaa lagu yiri warkaasi ka soo baxay taliska Mareykanka diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa muddooyinka u dambeeyay waxay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada kooxda Al-Shabaab iyo ururka Daesh ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa alaab ku fadhiso $55,000 oo ka timid Soomaaliya ku gubtay deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada Mandera ayaa waxay si adag u dhaleeceeyeen xayiraad ay sheegeen in dawladda Kenya ay ku soo rogtay badeecadaha ganacsi ee kaga yimaada Soomaaliya odayaasha waxa ay tibaaxeen askarta Kenya ay soo istaageen gaadiid xamuul ah oo siday raashin oo ka yimid Soomaaliya tan iyo markii dhaqaatiirta laga afduubtay gudaha dalka Kenya
waxaana sare u kac ku yimid qiimaha raashinka ee suuqyada magaalada Mandera. odayaasha ayaa waxa inta ay ku dareen in ciidanka Kenya ay la wareegeen ayna dab qabadsiiyeen alaab laga soo gudbiyay sohdinta wadanka Kenya la wadaaga wadanka Soomaaliya. odayaasha ayaa daboolka ka qaaday in badeecadaha ay Kenya gubeen tan iyo bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan ay wadar ahaan ku fadhiyaan adduun lacageed oo dhan 55,000 oo dollarka Mareykanka ah. goobaha dhagxaanta laga soo saaray ee ku yaala magaalada Mandera ayaa sidoo kale shaaciyay dadka ka ganacsada in howlihii la joojiyay taa oo cod dheer ay ku sheegeen in ay dhaawacday fursado shaqo oo la heli jiray. talaabooyinka ay qaadaysa Kenya ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo ay jiraan xiisad diblomaasiyad u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya taa oo ku saabsan muranka xuduudda badda ee u dhaxaysa labada dawladood. bishii hore ayaa Kenya ay ku dhawaaqday hakinta duulimaadka tooska ee Muqdisho iyo Nairobi. waxaa intaasi weheliyay inay soo masaafurisay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo u diiday dalku galka wadankeeda. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ilaa haatan ma aysan soo hadal qaadin wax tallaabo oo ku wajahan falalka isoo taraya oo ay Kenya ku kacayso xilli oo wali taagan yahay khilaafka siyaasadeed ee labada dal. xilli la filayay in dhawaan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland ay ka qabsanto doorashada madaxtinimo Jubbaland ayaa haddana wargeys ka soo baxay dalka Kenya waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay isku hayaan arrimaha doorashooyinka Jubbaland iyadoo suurtagal ay tahay in ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrean oo ka madax banaan AMISOM la geeyo Kismaayo si looga maarmo ciidamada Kenya. wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in dagaal xooggan oo ku saabsan doorashada Jubbaland oo dhex mari doono Kenya iyo Soomaaliya iyadoo dawladda Soomaaliya ay isku dayi doonto inay Axmed Madoobe ka turto xukunka halka Kenya ay ka go'an tahay inuu sii joogo Axmed Madoobe. warbixinta uu qoray wargeyska ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay adeegsan doonto isbahaysi cusub oo gobolka ah iyo dawladaha Qatar iyo Turkiga si maamulka Jubbaland looga wareejiyo Axmed Madoobe iyo ciidamada Kenya. sida warbixinta lagu sheegay qorshaha ayaa waxa ku jira ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrean oo ka madax banaan AMISOM in la geeyo magaalada Kismaayo si ay saameyn ugu yeeshaan doorashada Jubbaland loona xaqiijiyo in qof aan ahayn Axmed Madoobe oo taageersan dawladda Soomaaliya uu ku soo baxo doorashadaasi. Ethiopia ayaa si aad ah u soo dhaweynaysa qorshahan iyadoo leh ujeedooyin gaar ah oo ah inay gacanta ku dhigto dekedda Kismaayo oo ay ciidamada Kenya haatan gacanta ku hayaan. sidoo kale waxaa dhawaan ay dhisatay Ethiopia ciidamo bad ah oo u baahan saldhigyo ay ka maamusho badda cas iyo badweynta Hindiya sidaa daraadeed muhiimad gaar ah ayay u leedahay dekedda Kismaayo sida warbixinta wargeyska Kenya ka soo baxay uu qoray. warbixinta Daily Nation ayaa tiri Kenya waxay u baahnaan doontaa furfurnaan iyo xariifnimo si ay uga badbaado seefta Ethiopia Eritrea ee ku soo socota oo ay Soomaaliya adeegsanayso. maxaa ka jira in Kenya ay qabatay lacag dhan 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka oo uu lahaa sarkaal ku dhow qoyska madaxweyne Farmaajo. dhowrkii maalmood ee tagay waxaa baraha bulshada ee qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida ay aad u hadal hayeen lacag gaaraysa 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka oo Kenya ay ku qabatay garoonka diyaaradaha taa oo sida la sheegay uu lahaa sarkaal Soomaaliya oo ku dhow qoyska madaxweyne Farmaajo. warbixinada ayaa waxa ay sheegayeen in lacagta uu Ethiopia ka soo diray sarkaal ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo kuna beel ah madaxweynaha. waxaa warbixintaasi asalkeeda laga keenay wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi ka oo warbixintiisu aan raacin wax xigasho oo ku saabsan cidda warka uu ka helay haddii ay yihiin Soomaali ama Kenyaan. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka wariyaha caanka ah ee Soomaaliyeed Haruun Macruuf oo ka tirsan shaqaalaha VOA-da ayaa waxa uu ku sheegay in warka uu yahay mid been abuur ah oo aan wax sal lahayn. warbixinta uu dhawaan qoray website-ka Kenya ee ah in Kenya ay qabatay boorso ay ku jirtay lacag dhan 1.7 milyan oo dollar oo cidna aysan la socon waa been sida ay ku warameen ila wareedyo Soomaaliya iyo Kenyaan oo dhowr ah ayaa uu yiri wariyaha Haruun Macruuf. warbixinada ayaa waxa si gaar ah u adeegsaday dad aad uga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo madaxweynaha ku eedeeyay musuqmaasuq iyo in uu lacag u dhiibay dad ay ehel yihiin. wararka dibadda wararka TV saaka idin hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa inkiray inuu aflagaado u geystay gabar ka tirsan boqortooyada Ingiriiska.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay in wax laga yaqiiqsado uu ku tilmaamay amiirada Texas oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska iyadoo xitaa laga hayo cajalad codkiisa uu ku duuban yahay. Meghan Markle oo ah xaaska Amiir Harry oo ayaga u tahay boqorada Ingiriiska waxay dhawaan dhashay wiil cusub oo ku soo biiray dhaxal sugayaasha boqortooyada Ingiriiska. Waligay Meghan kuma tilmaamin wax laga yaqiiqsado ayaa madaxweyne Trump bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray maalintii Axadda. Wuxuu intaasi uu ku daray Mr. Trump waxaa sheekadan sameeyay warbaahinta faafisa wararka been abuurka ah sidoo hadalka u dhigay. Mr. Trump ayaa hadalkan la qoonsaday ku sheegay waraysi uu siinay wargeyska dasan mar uu isku diyaarinayo safar uu ku tago wadanka Ingiriiska. nin magaca boqortooyada Sacuudi Carabiya dadka ku baadi jiray ayaa xabsi la dhigay. sanado badan ayuu Antonio Gignac ku noolaa nolol boqortooyo oo raaxo leh. waxa uu soo xirtay dahab qaali ah, waxa uu raaci jiray diyaarado qaas ah ama gawaari ay ku xiran yihiin taargooyinka diblomaasiyiinta. waxaa sidoo kale isugu yeeri jiray suldaan, balse ugu dambeyntii Jimcihii ayay soo afjarantay sheekadiisa sheegashada amiirnimada. garsoore jooga magaalada Florida ee wadanka Mareykanka ayaa sheegay in Antonio oo 48 sano jir ah uu ahaa khiyaanalow sheegtay inuu ka mid yahay amiirada Sacuudi Carabiya si dadku ay u aaminaan isla markaana uu dhac u geysto. 30 sano ee ugu dambeysay Mr. Antonio ayaa ku qaraabanayay inuu yahay amiir ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya si uu gacanta ugu dhigo maalgashadayaal ka soo jeeda dunida daafaheeda. waxa uu la baxay Amiir Khalid bin Al Saud si dadka ay u aaminaan rajadiisa been abuurka ah. wuxuu Antonio ku dhashay Colombia waxaana soo korsaday qoys degan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka tan iyo 7 jirkiisa. markii uu 17 sano jirsaday wuxuu bilaabay inuu iska dhigo qof ka soo jeeda boqortooyada Sacuudi Carabiya isagoo khiyaanay shirkadaha iibiye kaararka taleefanada lagu shubto, shaqaalaha dukaamada iyo maalgashadayaal kale. guud ahaan daawadana markii aad kala socoteen wararka TV saaka waa naga inta